السلام عليكم. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa malaayiin dollar siisay shaqaalaha barta Twitter si ay u basaasaan muwaadiniinteeda. sababtuna ay tahay iyaga ayaa la xiriiray dad laga shakisan yahay sanadkii 2015 laba kamid ah shaqaalaha Twitterka Ali Al-Isbari Ahmed Abu ayaa la sheegay inay awood u heleen in ay galaan wax ka badan 600 kun oo jeer akoon intii ay basaasayeen una ahaayeen dawladda Sacuudi Carabiya. dacwad oogayaasha Mareykanka ee dacwadda ku soo oogay laba nin bishii November ayaa shaaca ka qaaday faahfaahinta dhacdadan iyo sidoo kale dacwad cusub oo ay soo bisay dad ka shaqeeya in akoonadooda ay ka mid yihiin akoonadii la jabsaday, balse faahfaahin kale oo ka kooban ayaa soo baxday waxaana laga yaabaa in ay dawladda Sacuudiga saameyn karto xogaheeda. faahfaahinta cusub ee ku saabsan bartilmaameedka Twitterka wakaaladaha Mareykanka ee Bloomberg ayaa sheegay in ay hay'adaha badan oo xuquuqul insaanka ah ka shaqeeya bariga dhexe ay aqoonsadeen 6 muwaadin oo Sacuudi ah oo la qabtay kuwaas oo adeegsanaya akoono aan la garanayn ama protocol ku ahaa barta Twitterka iyadoona la dhaleeceynayo dawladda. ugu yaraan 5 ka mid ah kiisaskaas waqtiga la qabtay iyo waliba jabsida Twitterada ayaa muujinaya in ay xiriir la leeyihiin sida uu qabo Kamaal Ciid oo ah agaasimaha fulinta shabakadda Arab Network Information. xuquuqul aadanaha oo ah hay'adaha xuquuqda aadanaha ee kormeerka xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolka oo saldhig u ah Masar. xisaab 3 ka mid ah 5 Sacuudi ee la xiray 2015 ayaa la sheegay in isticmaalayeen magacyo qarsoodi ah sida laga soo xigtay shabakadda Arab ee macluumaadka xuquuqul aadanaha. inkastoo koox maxaabiis ah ee loo yaqaan Prison ay aqoonsadeen kiiska lixaad waxay sheegtay in ay ka walaacsan tahay in Sacuudigu uu faalo siyaasadeed ku soo qoray Twitterka isagoona ku hoos jira magaca Albanian kaas oo qaybta ka ahna bishii December 2017. wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga iyo wasaaradda warfaafinta Sacuudiga ee Washington midkoodna kama uusan jawaabin codsiyada faalladaas. digniinta liiska madow waxaa xusid mudan in bishii Agoosto 2017 Sacuud Al-Qahdani mid ka mid ah taliyaasha u dhow amiirka dhaxal sugaha Maxamed bin Salman waqtiga uu soo saaray digniin ku socoto akoonkiisa dukumiintiyo ah ee Twitterka ee la jabsaday. Al-Qahdani wuxuu sharxay in dawladdu ay soo saari karaan aqoonsiyada saddexda ah ee dadka adeegsada bogaha Twitterka ee been abuurka ahi. faahfaahin kale ee barta Twitterka ayaa soo baxday dacwad ka dhan ah shirkadda oo ay soo gudbiyeen rag ka shaqeeya Sacuudi Carabiya oo ay ku bartilmaameedsadeen in ay tahay qiyaameen la qiyaameeyay. Umar Abdulaziz oo ah bogga Twitterka internetka ee Sacuudiga isla markaana ahaa mufassiriin ayaa ku eedeeyay dacwadiisii ku saabsaneed in Sacuudi Carabiga ay shaqaaleysiisay rag basaasin u ah isla markaana jabsada xogaha dadka iyagoona jiraan macluumaad si toos ah u saameyn kara. Abdulaziz wuxuu sheegay in shirkaddu aysan weligeed u digin in akoonkiisii la jabsaday Sacuudi taasna ay khatar gelinayso kuna qasbtay in uu ka baxo gurigiisa oo ku yaal Canada isagoo halkaas u joogay waxbarashadiisii heerkiisii koowaad. si kastaba Twitter ayaa sheegtay in ay u gudbisay digniin Abdulaziz in akoonkiisa uu ku leeyahay barta Twitterka dadaallo ay maalgelinayaan dawladda mucaaradka ah ilaa ay hubisay. nin kale oo mucaaradka ah oo lagu magacaabo Ali Ahmed oo degan Washington ayaa dacwad ka gudbiyay Twitter bishii July isagoona sheegay in akoonkiisii uu la jabsaday taasna ay weerarkaasi ka dambeeyaan dawladda Sacuudiga. Ahmed wuxuu wareysi ku sheegay in uu adeegsanayay akoonkiisa si uu ula xiriiro fariimo qaas ah kuwa kale ee ka soo horjeeda Sacuudiga oo ku jiro Cabdurrahmaan si uu qasab ahna ay uga wareegeen ololaha xuquuqul aadanaha. ilaa dhowr dawladood oo Sacuudi ah kuwaas oo mararka qaar sii daaya macluumaadka qaar ee waliba xogaha dahsoon. dhanka Twitter ayaa sheegay in ay ku wargeliyeen Ahmed sanadkii 2015 akoonkiisii la jabsaday kaasoona Ahmed uu dafiray. qaar ka mid ah warbaahinta Sacuudiga ayaa ku waramay in Al Jazeera uu xaq dhintay isagoo lagu jirdilay xabsi, balse Anas Cusmaan oo ah agaasimaha ururka Muno ee xuquuqul aadanaha ayaa sheegay in mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Sacuudiga ku wargeliyeen kooxda qaramada midoobay in ay la socdaan dhaqangelinta sharciyadii waxayna sheegeen in ay bishii Febraayo oo Al Jazeera ku geeriyooday xabsi lagu hayay kaasi oo ku yilay magaalada Al Hayr.